Casco bien, dice. يا بنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا لمان حلبان هذا قلها شعبك حلبان هذا أقل كسره لمان شعبك الصوماليات أوله علماء الدين يا لمان قيبها أرود بالشدة أكل الدون. وأنا السلام يا سلام كبعدين وحى غرتك جمان تقولي هاي وحى دستور كأنه وحو قضاء بوضع كيس السوداني اللبات إن مواطن كاستبع مقف والبقو حق وليه هاي إنه معلومات دولة أي هيسو إنه حلو سي أرنتا أو مرتا إن شعب يقول إيه أرمها ماما كود السياسيات أي ولا السعودان عدالتنا اللوكا أناكو تربورتا قولها شعبك حلبان قولها شعبك وحا أي مدة كشقين إنه مروا بكفوا قادان فوضى إيه بوق إنه كفوا قادان أي أنقاد ودلاليني waxaan soo ogolaanay dhammaan waxyaabihii suurtagal ah oo looga fogaan karo qalalaaso iyo khilaafaadkan marka lagu xalinayo marka khilaafaadku wixii lagu xalinayo aan soo dhaweyno wixii marka fawda keenayan aan ka fogaano dhammaan wixii noo soo jeediyay oo xal u abaarnaana aan ogolaanay tii ugu dambeysay uu ahaa guddiga aqalka sare qodobadii uu soo jeediyay oo qaarkood ahaa habraac qaarkood ahaa marka xallin qaarkoodna ahaa odaytanimo iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo wax lagu dhexdhexaadinayay dhammaan waa tirabuurta xildhibaanada way ogolaadeen hase yeeshee garabka kala mar walba diidayay oo tiro gaaban oo xukuumadda dabada ay ka wado ay ka soo riixayso saadaradeed in muddo dheer ah shacbiga markii khilaafaadkan uu bilowday shacbiga culamaa diinkiisa iyo dhammaan ururada bulshada qaybeeda kala duwan waxay mar badan ku dhawaaqayeen in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo arintani soo dhaxgalo oo xal u raadiyo khilaafaadka jira looguna yeerayo ma aha axsan loogu yeerayo waxa ahayd inuu guto xilkiisa dastuuriga ah oo ah ilaaliyaha dastuurka iyo waxyaabaha la isku haysto arinta la isku haysto maadaama ay tahay arin dastuuri ah iyo sharci ay tahay inuu soo dhaxgalo dhexdhexaadiyo ayaa loogu yeerayo laamaha oo dawladda way kala magiciisi soocan yihiin anigu waxaan hogaamiyaa laanta sharci dejinta madaxweynaha wuxuu hogaamiyaa laanta fulinta iyo garsoorkan waa ka madaxweyne saddexdaas laamood ayaa loo kala baxaa hase yeeshee xil gaar ah ayaa ka saaran maadaama uu ilaaliyaha dastuurka uu yahay markii arrin dastuuri ah shuruucda ku saabsan tahay inuu soo dhexgalo waajibaadkiisaas dastuuriga inuu guto ayaa mid dad badan ugu yeeraynay intii muddo ah markii oo la sugayay oo dhowr iyo 18 beri ka badan ayaa maalintii sabtidii dhaweyto ayaa markii aan wada hadal yeelanay aniga oo ay la joogaan labadayda ku xigeen ee golaha shacabka ayaa waxaan ku heshiinay inuu shirkaas sabtidii la soo dhaafay la qaban lahaa la joojiyo si fawdo iyo kala tag iyo magiciis iyo buuq looga daayo ayay ahayd waxaan ku heshiinay muddo 10 beri ah in aan ku soo afjarno arrintaasi oo labada garab la isu keeno la dhexdhexaadiyo wixii sharci ama sharciga la raaco dastuurka la raaco xeeroosaadka la raaco ama se wixii asaga uu soo jeedin karo ku xallin karo odaytanimo ah oo dhaqan Soomaaliyeed dhaqan sharci ah in lagu dhaqmo ayay ahayd hase yeeshee meeshii la sugayay oo ay ka mid tahay xukuumadda oo arrintan aloosantay ayada ay abaabushay
oo ilaa haddana ay daba joogto ayagaa ku habboon in la weydiiyo inay iscasilaan maadaama ay ku fashileen arrimahan iyo qalaaska ay abuureen ayagaa ku habboon in la weydiiyo inay iscasilaan way fashilmeen qalalaasay abuureen waxay ku talax tageen xurmadii golaha ummadda oo golaha shacbiga ay ku talax tageen falal badan oo aan fiicnayn bay ku kaceen xildhibaanay haddadaan waxyaabo badan ay ku kacaan arrimahaasi waxa weeyaan xukuumadda waajibkeeda waa gabtay waa arrin qariib ah in xukuumaddii annaga aan u xil saaranay howlahaas inay fuliso inay kusoo jeesato ay tiraahdo lama shaqayn karno guddoonka baarlamaanka micnaheedu waxaa waaye inaan u shaqeeyay rabaan walaalayaalo waxaa naga dhexeeya waa arrin dastuuri ah oo kala qeexan inaan korjoogtayno aan xilkii aan u dhiibanay aan ku ilaalina ayaan u xil saarannahay uma joogno loomana dooran in annaga aan ayaga u shaqayno wada shaqayn waa naga dhexaysaa xilkayna waa xil dastuuri ah labadeen noo kala soocan marka arrintaasi aad baa layga gardaran yahay aniga in lay weydiiyo inaan iscasilo iscasili maayo sharci baan ku imid sharcigaan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuq waa diideen mooshinay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fawdaan samaynaynaa arrintaasi ummadda soomaaliyeed ma qabato shacbiga soomaaliyeedna nooma dooran waxaan u taagannahay in sharciga iyo dastuurka iyo shareecada iyo maqaasiidka shareecada inay guulaysato in lagu dhaqmo ayaan usoo taagannahay si qaanuuni ah oo markaa oo sharciga waafaqsan in loo magiciisiiyo ayadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa muuqata in markaa isku dayidii ama isku keenidii la doonayay inuu madaxweynaha labada garab isku keeno oo wada hadal siiyo ma ayna dhicin mar walba waxay joogtaa tugaariyo iscasil arrintaasna ma qabato waa meel ka dhac ihaano weeyaan waxaan yeelaynana ma aha hadda sida muuqata waxaa madaxweynaha shir berita la qabanayo oo lasoo fasaxay inuu isaga soo fasaxay oo fawdadii iyo rabshadii iyo qalalaasihii meeshii laga sii wada inuu soo fasaxay baa cad saa daraaddeed waxaan ummadda soomaaliyeed u caddaynayaa in arrintaas wixii cawaaqib ah ka yimaado ama dhibaato ka timaado ama dhibkii dhaca wax annaga aan mas-uul ka nahay ma aha waxaa toos mas-uuliyaddaas u qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed ayaa loo haystay marka saa daraaddeed waxaan dhammaan culimaa diinka iyo ururada bulshada iyo shacbiga oo dhan aan ka codsanayaa in lala hadlo madaxweynaha oo dhinac jirka iyo xag jirka iska dhaafo dhexdhexaad ka noqdo waajibkiisa dastuuriga ah inuu guto waajibkiisa dastuuriga ah ha guto ma aha wax laga baryayo waa waajib u saaran dastuurka qodobkii 87 waa ilaaliyaha dastuurka in lagu dhaqmo dastuurka iyo in lagu dhaqmo sharciga noo degsan in la ilaaliyo xeer hoosaadka si daahfuran arrimaha oo dhan looga shaqeeyo waa waajib saaran mabaadi'daasi guud ilaalinteesi asagaa laga rabaa waxaan codsanayaa dhammaan shacbiga soomaaliyeed inay arrintaasi ka warqabaan annaga wax mas-uuliyad aan qaadayn ayna sii jirin intaasaan rabay inaan idinla wadaago waana xaq dastuuri aada lahaydeen shacbiyo iyo muwaadin kastoo iyo xildhibaanow in arrintaasi aada la socoto arrin yar aan rabo inaan kala dardaarmo xildhibaanada markii duruufaha noocan oo kale mashaakilka noocan oo kale ay dhacaan waxaa soo baxa shaksiyadda xildhibaanka shaksiyadda siyaasiga xildhibaankaa soo baxaya noocee buu yahay siyaasigaas waa markii oo adiga aada ra-sumaalkaaga siyaasiga ama yani muflis aada noqonayso ama ra-sumaalkaaga siyaasiga u dhismay is-ilaali xildhibaan is-ilaali saxiix aada wax saxiixayso wuxuu ka dhigmaa 52,000 oo muwaadin ayuu ka dhigmaa ha cuslaado saxiixaaga ha cuslaado codkaaga ka fiirso marka aada hadlayso waxaad wakiil ka tahay oad matashaa 55,000 oo muwaadin ka badan baad matashaa marka saa daraaddeed muflis ha iska dhigin oo siyaasi ah dhiso dhalinyara u badantihiin kulligiina oo garmadoow ah dhiso shaksiyadaada siyaasiga ah mustaqbal baad leedahay marka ka fiirso arrimahaaga badbaadso barlamaankaaga annagu inuu jiro golahaas shacbiga ayaan u joognaa golaha shacbigoo la weerarana wuxuu la mid yahay shacbigoo la weeraray saa daraaddeed waxaan uga digayaa xukuumadda arrimahaas inay ka joogsato abaabul baa socdaa isoo gaartay in berito ay rabaan ku kacaan abaabulkaasi oo marka cunfiga ama gacan ka hadalka ah ha la joojiyo yaysan dhicin arrintaasi iyo marka rabsho iyo qalladaaskaasi
shirka oo la isugu yeeray Britain waa sharci darro aan waafaqsaneen gudoomiye ku-xigeenka koowaad kan isuguma yeeri karo guddiga joogtada hore ajenda u dejiyay fadhiga la isugu yeeray iyo ajendada la soo dhigay labadaba sharci darro waayo madaxweynahan hadduu arrintaas gacan ku siiyo mas-uuliyaddeeda uu qaadaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin xaqiina dastuuriga ahayd inaan idinla wadaago wixii hadda ka dambeeyana mar walba waxaan soo tolin doonaa wixii magaciisa 10 maalmood lagu ballamayna weli 5 beri ayaa kasoo tagtay 5 beri kala dhiman waxa hadda loo fasaxay ma garanayo weli la isku madayin dhexdhexaadin la isku madayin in la isku keeno labada garab inta annaka waxaan dadaalayna in marka labada dhinac la isku keeno khilaaf ayadoo jira golahaasi inaan la tegin ayadoo ajenda lagu heshiis yahay oo la isku raacay oo labada garab isku raaceen hadhowdii hadalkoodan ay u madax baaheen qofna aan la afjigaynin sida furan loo shaqeynayo ayaan raalli ka nahay laakiin sida hadda ay ku socoto shirka la isugu yeeri berri gudoomiye ku-xigeenka koowaad uma yeerin karin sharci malaha ajendada uu wadana sharci maaha labadaba waa sharci darro cid alla ciddii garab ku siisana waa dambiile aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi